السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo هذا barnaamijkeena xogta caalamka oo aad ka heli doontaan xaqiiqooyin yaab leh, taariikho qarsoon, siraha dowladaha ugu awoodda badan dunida. Anigu waxaan ahay Maxamed Axmed Xirsi, halkaad iga daawanaysaana waa Xog Media. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad iyo aad kaaga yaabin doona, sidee Switzerland ku noqotay mid ka mid ah dalalka ugu taajirsan dunida iyadoo aan lahayn saliid, dahab ama macdan gaar ah intaba. Haddii aad jeceshahay xaqiiqooyin run ah, siraha dunida qarsan, hubi inaad soo follow gareysay page-keena, sidoo kale subscribe saarta channel-keena YouTube-ka. Switzerland waxay ku taalaa bartamaha Yurub, balse waxa ay doortay hal go'aan oo taariikhi ah inay noqoto dal dhexdhexaad ah. tan iyo 1815 Switzerland kama qayb gelin dagaalo waaweyn, xitaa labadii dagaal ee adduunka. dalalka kale waa ay burbureen, laakiin Switzerland waxa ay noqotay meel ammaan ah oo lacagta lagu kaydiyo ayna ku yaalaan bangiyada ugu waaweyn caalamka. mid ka mid ah siraha ugu weyn waa bangiyada Switzerland waxay caan ku yihiin sirta ilaa heer sharci ahaan loo ilaaliyo. taajiriinta, siyaasiyiinta iyo shirkadaha waaweyn waxa ay lacagtooda geeyaan halkaas sababtoo ah waa ammaanada iyo kalsoonida. Switzerland ma lahan wax khayraad ah, laakiin waxa ay samaysaa sida saacadaha Swisska kuwa ugu qaalisan adduunka, daawooyinka, shirkado waaweyn sida shirkadda Novartis, iyo teknolojiyada injineerika oo heer sare ah. waxa ay diiradda saaraan quality ma aha quantity, oo macnaheedu tahay waxa ay diiradda saaraan tayada ee ma aan tirada. waxbarashada Switzerland waa mid aad u xoog badan, gaar ahaan xirfadaha skillska. dadkooda waa high skill, taasoo ka dhigaysa dad shaqo yaqaan ah. Switzerland waxa ay leedahay nidaam siyaasadeed oo degan, canshuuraha qaarkood waa ay hooseeyaan marka loo eego dalalka kale Yurub. tani waxay soo jiidataa shirkadaha waaweyn iyo maalgelin caalami ah. haddaba daawade, sirta Switzerland maaha saliid, mana ahan dahab, ee waa kalsooni, aqoon, nidaam adag iyo xeelad dheer. daawade, haddii aad rabto inaad ogaato sida dalalka qaar ay ku noqdeen kuwa awood leh, hayloobin page-keena Facebook inaad soo follow garayso, sidoo kale channel-keena YouTube-kana aad subscribe saarto. anigu waa Maxamed Axmed Xirsi, dirar.